السلام عليكم وإذا السلام أصحابتي إذا قالوا جمال الوجوتين وأنا وإفراح يوتيوب جنال كايق لسعود وإفراحين الجنال فالنا يوتيوب جنال كي قاعد أقول سبت السورة وسبسكرايب إثار فيديو وداكيشت لايك ده أيامها وأسكن مشغولة حوجا الحمد لله وأنا بتقبل وفي عنها هاي بتسود ويدينا ومهتسنتين marka sida ognaaba ayaamahan cudurkan ayaa socdo caabuqaas ilaahay ayaa ka magan galnay inta muslim ilaahay ha ka caafiyo inta u dhimatayna oo muslim ilaahay jannada firdawsa ha ka waraabiyo ilaahay inta uusan heeninne ilaahay ha ka haayo intuu haayna ilaahay caafimaad degdega ugu baryanaa wallahi waa ka xumahay dadka muslimiinta meel walba joogaan laakiin khaasatan soomaalida ku dhimatay aad ayaa ugu xumaaday laakiin ilaahay caafimaad taama hasi intuu hadda haayo inta dhimatana ilaahay u naxariisto waa cudur xun ilaahay ayaa ka magan galnay waa virus aad u xun aad ay u sii kordhaya marka horta wax walbo waxaa looga hortagi karaa ilaahay inaad tala saaratid wax walbo waxaa yacni looga badbaadi karaa ilaahay inaad tala saaratid ilaahay oo la tala saarto qofku waxba ma ku dhacaan ilaahay tala saaro maxaan ku dhahay taxadarkan wuu fiican yahay in la dadaalo gurihiina iska joogtiin gacmaha iska dhaqdiin maxaan ku dhahay waxyaalaha oo la ida sameeyo inaad sameysiin yacni taxadarka wuu fiican yahay in aad loo taxadaro ilaahay waa kula jira adigana dadaal ku dhahay marka anagana waa inaad dadaalnaa yacni marka maanta waxaa rabaa inaa idinkaga faa'iideeyo sida ugu fudud oo macnaha ugu hortagi kartid waxa in laga daba tagaa waxa ka fiican in laga hortagaa sida iskaga daaweynaysid markuu kugu dhaco waxa ka muhiimsan inuu marka horabo aad ka hortagtid yacni ilaahay nooma keeno laakiin taxadarka iyo dadaalka ayaa wax muhiim ah marka in la iskaga faa'iideeyo marka inaad ka hortagtid waxyaalaha aad u isticmaalaysid iyo sababaha oo ugu fudud oo ugu hortagi kartid ayaa rabaa inaad idila wadaago waxa ka mid ah gurigaaga iska joogtaa had sida ognahay meel walba lockdown meel la aadayo malaan marka guriga markaa joogtid aad wax daawo iyo wax inaad isticmaasho uma baahnid waxaa sameynaysaa biyo karkarinaysaa biyo ayaa waxa ku karkarinaysaa lima dhanaan waxa ku karkarinaysaa wax oo nacnac ah adi yacni minto wax nanac shaax nacnac haysatid caleenta oo nanac sida nanac kuleelka ka wada ayaa nanac dhan ma nanac kuleelka sida uu usoo carfo mintaha dadka badanaa way yaqaanaan waxyaalahaas oo kaleenta maaragtay caleenteeda hadaa haysatid oo qoyan caleenta mida shaaxa loo isticmaalo xitaa nanac kuleel hadaa haysatid intaad jabisid biyaha waa ku dari kartaa hadda meel walba xireen meel wax laga soo gadanayo badanaa ma balahan dadka meelahan joogo marka wax kaas koow lima dhanaan xabad soodo qorfo dagayaro laakiin shaax camal inaad karinaysid biyaha ku karkarinay weel daboolan markaas baaquli xoogaa gudana ku shubay wajigaaga maraa ku daboole hoosta gashanaysaa waa isku uumine wajiga dhan maasha Allah maskaxda dhan way ku furmaysan kadhan haduu hirgab ku haayo hadii oo qandho ku hayso sanka ka xiran yahay caburka adi dhan yacni fresh aad dareemay hawo fresh aad qaadanay maasha Allah qandhada xataa way ka jabi hadii qandho ku hayso iyo hadii isku heenin maasha Allah aad ayuu u fiican yahay waxaa kale intuu sameynayna oo badan inaa isticmaalna ee muhiim tahay oo mar walba inaa isticmaashid oo looga hortagi karaa oo bakteeriyada ka dilayso lima dhanaanta shaax markaa cabaysid lima dhanaanta ku darso lima dhanaanta aad u fiican tahay bakteeriyada disha gaaska ka wixinay wax dhan way ka wixinay maxaa kale inta malabka aad u fiican shaax sokor ha ku darsanin badalkiisa malab ku darso malab lima dhanaan shaax hadaa ku darsaday maasha Allah xabad sooda waa maasha Allah xabad baraka waaye waaba ognahay diinteena sheegtay maasha Allah xabad sooda iyo malabka xabad sooda ayadana aad loo isticmaalo saliideeda shaaxa ku darso ayadoo budo ee hadaa haysatid sidoo kale ku darso maraqa waxa dhan ku karso waxa kale oo isticmaashaa filfil hadii qandho ku hayso hirgabto ku waxa dhan xabadkay ku furo filfisha aad u fiican tahay filfisha ayadana ku dadaala toonta aad u fiican tahay sanbabada maxaa ku dhahay dhiigaaga way kala dhaqaajinay u shaqeynaya infekshinka dhiiga waxa dhan way ka daaweynayaan gaaska maasha Allah aad u fiican tahay ayadana caloosha waxa dhan bakteeriyada dhan ay dishaa maxaa ku dhahay toonta waxa kale intoo aad u isticmaalnaa aad u fiican haruud maaragtay haruud qoyan iyo ayadoo budo xataa hadaa haysatid jirka qalaji waa infekshinka dhiiga wax dhan ay kala dagaal maasha Allah aad u fiican tahay shaaxa lagu karsadaa maraqa lagu karsadaa cuntada lagu darsadaa kala iska arag marka waxyaalo badan oo anaga waxa haysanaa oo dabiici ah alxamdulillah
ilaahayga nasiya ku mahadnaa waxyaalo badan oo dabiici oo daawo ah oo anaga maasha Allah aad noo caawiyaa jiro maasha Allah waxyaalahaas dhanna isticmaalno wax ka muhiimsan ma lahan iska isticmaala insha Allah yacni qofka xanuunsan iyo qofka xanuunsanayn labaduba way anfacaysaa uguma talagelin kaliya dadka xanuunsan qofka caafimaadka qaba xataa iska isticmaal waa ka hortag waa liima dhanaanta tuunta sanjabiisha haruuda shaaxa ku darso malabka badso waxaas dhan xabadsoodada sanka saas u saaro haddii sanka uu kaa xiran yahay hirgib ku hayo marka waa ka hortag waxaas gurigaaga iska dhigo iska isticmaal waxaa kaloo sameysaa guriga ku shido quraanka u shido guriga quraanka u shido waxaa kaloo guriga u shidataa liima dhanaanta maaragtay liin dhanaanta iyo waxa oo nacnaca dabka intaa saartid hadaad mashiin haysanin oo qaacinayo dabka saar qaacaas guriga ku baxay hawo fresh waaye maasha Allah nadaafadana aad loogu dadaalo marka insha Allah ilaahay ayaa xifdi karo anagana waxaa waaye inaan dadaalna inta tabarteena marka insha Allah dadaal ayaa idin ilahay walaalihii qaaliga ilaahay khayrkana waafajiyo waa mahadsantiin insha Allah caafimaad ayaa idin wada rajeynaya meel walbo joogtiin dhamaantiina walaalihii qaaliga insha Allah waa inuu fiidiyowga daakeyshid like subscribe tadaada isaaran isaar fadlan soo dhawaaw waa mahadsantiin